waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde airport ee Muqdisho maanta lagu soo dhaweeyay rakaabkii ugu horeeyay oo isido diyaaradda Qatar Airways burburkii kadib xaflad kooban oo ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka qaar ka tirsan safiirada wadamada caalamka u fadhiya Soomaaliya iyo marti sharaf kale soo dhaweyn kadib waxaa warbaahinta la hadlay mas'uuliyiin oo kamid yahay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda Qatar Airways u qaabilsan wadamada bariga dhexe qaaradda Afrika iyo waliba dalka Pakistan mas'uulkaas oo lagu magacaabo Ihab Amin waxa uu faahfaahin ka bixiyay duulimaadyada ay ka sameyn doonto dalka shirkadda Qatar Airways. Will also offer both Somalis and expatriates residing in Somalia direct link to our extensive global network for more than 160 destinations via our award-winning hub Hamad International Airport. Inta kadib wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa faahfaahiyay waxyaabaha ay ka qaban doonto shirkadda diyaaradaha Qatar Airways gudaha dalka. waxa uu sheegay inay ka mid tahay diyaaradaha caalamiga ah ee ka howlgali doona garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho. waxaa maanta inoo furmay duulimaadka shirkadda Qatar Airways oo duulimaadkeedii ugu horeysay maanta oo 1 July ah ku soo gaartay magaalada Muqdisho. waxay sameyn doonaan duulimaad toos ah Qatar Doha iyo Muqdisho 3 maalin usbuuci. waxaan rajaynaynaa in intaas ay ka badan doonto haddii Ilaahay ka raali noqdo. sida ay la socotiin airportka Muqdisho waa wuxuu ka mid yahay airportada ugu amniga fiican ee adduunka ayuu hadda ka mid noqday. taas awgeed ay ugu soo dhiiradeen diyaarado badan oo Qatar Airways ay ka mid tahay. sidoo kale wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa faahfaahin ka bixiyay 6 bilood ee ugu dambeysay waxqabadkii garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho. 6 bilood ee ugu horeysay sanadkan 2019 airportka waxaa ka soo degay ama ka kacay 80,000 oo diyaaradood flight ayaa ka soo degay ana ka kacay. intaas oo hal incident ah wax aanan ka dhicin airportka. taasna waxay ku tusaysaa horumarka uu airportka wasaaradda iyo dawladda intaba ay keentay ay ku tusaysaa. intaas waxaana diyaaradda Qatar Airways waxay u fududeyn doontaa dadka wadanka imaanaya Soomaalida u badan yihiin diaspora ka imaanaya in ay ka imaan karaan nawaaxiga adduunka oo dhan ay soo gaari karaan Muqdisho iyaga oo hal tigid ku socda. waxaan soo dhaweynaynaa shirkadda Qatar Airways. waan soo dhaweynaynaa dawladda Soomaaliyeena si wanaagsan ay ula shaqeyn doontaa sida ay ula shaqeysay diyaaradaha kale ee internationalka ah ee airportka ka soo degay. shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa ka mid noqon doonta shirkadaha caalamiga ah ee ka howlgala garoonka diyaaradaha aadan cadde ee Muqdisho waxaana ay bulshada Soomaaliyeed ee ka caawin doontaa shirkadaas inay gaaraan 160 dal oo kamid ah dunida. Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil Shabeelle TV Muqdisho.